ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كم من منبر ككري مركاسو منبر كيسو سدح جرنجروها جرنجردي كوباد مركو عقد ساري بو آمين يدي تي لباد مركو عقد سارينا آمين بو يدي تي صدحاد مركو عقد سارينا آمين بو يدي صحابة مركي سؤالين وحو نبي الشيء عليه الصلاة والسلام سدح قف إن جبريل هباري ونبي نو آمين يدي وحكم إذا قف رمضان أسوق قشو ويسوون لودن بدافين أي رمضان ضماته وحوي سنكي سحبون ما إلهي نار تحكو فوقين qofka labadiisii waalid soo gaaray ama midkood oo aan daraadood loogu dambi dhaafin oo sida markaa waxa weeyaan waalid kaga dhintaan isagoo maartay birri iyo wanaag kala hadhin ilaahay maartay naarta ku fogeeyo ama sankiisu haboodo bas riwaayad qaar ku tilmaamay qofka nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam agtiisa lagu soo hadal qaado oo salliga kala baxayla oo nabiga ku sallin waayana nabi sallallahu alayhi wasallam sidaas uu habaaray marka qofkii bishii Ramadaan u soo gasho oo sida marka waxa weeyaan isagoo ka faa'iideysan uga baxdo tawfiiq la siinin runtii waciid adag baa ku soo aaday marka nabi kaleey salaatu wasalaam ku ducaysanayay ilaahay inuu Ramadaan u dhaliyo islaamnimo iyo iimaan iyo sidoo kale waxa weeyaan caafimaad qab iyo tawfiiq ilaahay ku toosiyo khayrka bisha man xurima khayraha faqad xurim qofka bishan khayrkeeda iyo habeenka khayrka badan ee qadriga khayrkiisa la siijiyo waa mid markaa khayrkii la siijiyay oo qof runtii hungoobay oo waxa weeyaan wax badan oo khayr waayay bisha markaa sidaas nabigu u ducaysanay markay soo galayso